waxa ay yimid taliyaal cusub haday noqoto xooga ciidamada qalabka sida gaar ahaan xooga taliska maxaan ku raahdaa nabadgelyada iyo booliiska iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida oo runtii u heelan inay keenaan ammaanka magaalada si toos ugu soo celiyaan si noloshii ay normal ugu soo noqoto caruurta isku aadaan cid alla cidii adduunka nooga imaanaysa loogu tarsanaysa aysan marnaba xuur wali nabadgelyadooda waxaan rabaa inaan baaq aan u diro cafis ah dhalinyarada runtii la waalay oo shabaabka ay maxaan ku radaa ay waaleen oo ay khalad uga sheegeen dalkan waxa uu yahay iyo diinteena maxaan ku radaa muqaddaska ah inay noo soo noqdaan oo ay qayb ka noqdaan horumarka dalka waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan dejinaynaa meel waxaan siinaynaa waxbarasho waxaan siinaynaa shaqooyin haddii si khalad loogu sheegay dalkan waa dalkoodii annaga waa caruurteenni weeye waxaa laga rabaa in aysan dadkooda laynin aysan hantida dadkooda aysan mudurin waxaan ku baaqaynaa muddo 60 casho ah inay cafis aan siinay ay loo yimaadaan gacmo furan aan kusoo dhaweyno hubka ay ummadooda ku laynayaan ay iska dhigaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waajib wuxuu ka saaran yahay inaad nagala shaqeysaan sidii aad weliba aad ahaydeen sidii magaaladan ay ammaankeedu soo noqon lahaa oo aad noo sheegtaan meelaha dhibka ka jiro iyo cidda Soomaaliya cidda magaaladan iyo dalka guud ahaan ku haysa xasilooni la'aanta ku haysa oo aad u istaagtaan nabadgelyada maxaa yeelay nabadgelyadu waa nolol weyn haddaad noo sheegtaan meesha ay ka jiraan iyo dadka dhibka wada ciidamada qalabka sida waxay u taagan yihiin oo ay diyaar u yihiin inay magaaladan ay xasiloonidii iyo nabadeynteedii ay ku soo celiyaan si ay u noqoto magaalooyinka kale oo adduunka ka jira waxaan rabaa ugu dambeyn dowladdani waxay sheegtay 3 arrimood oo muhiim ah oo aan ka shaqeynayno oo qayb ka ah la dagaalanka aan ka hadla hadda waxa weeye kow nabadiid inaan la dagaalno shabaabka inaan la dagaalno iyo qof walba oo iyo cid walba iyo urur walba oo runtii ka soo horjeeda qaranimada Soomaaliyeed inaan la dagaalno tan labaad inaan la dagaalno musuqmaasuqa maxaa yeelay musuqmaasuqa iyo shabaabku annagu waxba nooguma kala duwanaa waa isku nooc midna dadka horu u laaya midna musuqmaasuqna dowladda iyo dadka tartiibu maxaan ku raahdaa u dumiyaa tan saddexaad inaan la dagaalno faqriga dadkeenu waa badacsan yihiin dhalinyaradeenu shaqo la'aan badan yaa jirta oo baahsan waxaan doonaynaa in Soomaaliya ay ku soo noqoto siday ay ahaan jirtay oo ah dhalinyaradu inay shaqo helaan dadku inay noolaadaan nabadgelyo buuxa inay timaado saddexdaas arrimood waxaan doonaynaa shacabka Soomaaliyeed inay nagala shaqeeyaan la dagaalanka nabadiidka argixisada la dagaalanka musuqmaasuqa dowladdu waxaa haysataan runtii priority-geeda ama muhiimadda koowaad ay tahay inay keento dowlad wanaag ay keento oo musuqmaasuqa la dagaalanto shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay idinkuna nagala shaqeeya qaybta faqriga way imaanaysaa haddii la keeno haddii lala dagaalo nabadgelyo xumada haddii lala dagaalo oo shabaabka lala dagaalo cid walba oo runtii Soomaaliya dhibkeeda ka shaqeynaysa musuqmaasuqana lala dagaalo waxa weeye faqri waa laga baxaya waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh